gabadhaa tartantay hagardaamoyinka ku hoos laaban ee ummadeenna ku wajahan ee dadku aysan wada fahmin waxa ka mid ah marka ugu horraysa gabdheenna in la kacaamiyo ee la yidhaah gabdhow gabadha nuucaasa idin tartantay gabdha ka orod badanna waa idinka buuxaan marka gabar kale booskeeda keensada ilaa sidaa waxaad ka garan kartaa warbaahinta gaala maxaa wada geliyey warbaahinta gaalada oo dhan waxay wada hadal hayaan tartankii gabadha waxa weeyaan Soomaaliga ahayd ujeedka laga leeyahay maxay tahay ilaa gabdha nuucaas ah oo sida u tartama kuwoodaba waa laga helaa waxa laga helaa gabdho inta tartanka soo gala socon waaya gabadhan marka muslimadda ah ujeedka laga leeyahay waxay tahay in gabdhaha muslimaadka la yiraahdo war gabdhow Soomaaliyay gabadhan booskeeda gabdha kala keensada si gabdhaha Soomaalida ah loo tuso tartanku inuu iska fiican yahay ilaa waxa lala dagaalamaya waa shariicadeennii إلهي سبحانه وتعالى وحو أرنيا ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا واحد كمغليسان قالوا دفر بدن وحدك إذن دبا مركا إلى إذي يرعدان قبل الله هذا الهيو إيه مالك سلق قريو وجاك وحكا معهن وإن إذيك الله إذيك عمي إلا إلا ورقبت لي إني سيدنا الله قريه بري واحد ترتما أرضيا الله إذيك هرب ومدى أقوها الرئيسان midda labaadna waxay tahay xijaabka in waxa weeyaan lala dagaalamo midda labaad oo ku hoos duugan waa xijaabka in waxa weeyaan dagaal lagu soo qaado ilaa gabadhii meesha taagnayd wixii ay wadatay ayaa lagu dhahayaa waa gabadh xijaaban gabadhii tartamayday dharkii ay wadatay ayaa la rabaa in ummadda laga gado illa yira dharkaas waa xijaab oo hadhow gabdhihii ay yiraahdaan gabadhaas waa xijaabneed hadhow suuqa lagu maro hadhow berrito ay ka dhalato suuqa in lagu maro dharkii gabadhu wadatay oo hadhow loo maleeyo wax fiican loo maleeyo midda uu tilmaamay rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam maantana la hayo waxa ka mid ah in gaal la jeclaysanayo lagu dayo doono waatuu tilmaamay xadiiskii saxiixa ahaa la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin diraacan bi diraacin hatta law salaku juhra dabbin لسلكتموه رسولك الله أرنا صلى الله عليه وسلم قال وات راعيسان تاكو دودن حتى هاتو قد أبي سقروا وات كذب قال إذن وروح الله مسلمين ما كان يا قبر مسلمات الدين له إن قال قاول لأجيو وري والله في رصده ورباهين تودي أي هذا الهيان حتى نفرق واويد يا الضمر إسكو صويران وروح صهر مرمى أهن